Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halkani waa Gari Global Network. Maanta waxaan idin haynaa cabasho ka dhana madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia mudane Mustafa Mohamed Umar. Cabashadu waa sidatan dhageysi wacan. bismillahi raxmaani raxiim. tan ugu horeyso waxaan dacwad ka nahay ama ashtaka ka soo jeedinaynaa madaxweynaha kilka shanaad dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafa Mohamed Umar. golihii wasiiradii iyo dowladdii la soo dhisay runtii waxaanu ku aragnay waxyaalo aan lama filaa ah ama kaag bay maartay ummadda ku noqotay haddaanu nahay waxgaradka gobolka Daawa. sidaad ogsoon tihiinba kilka shanaad wuxuu ku dhisan yahay dhowr tiir buu ku dhisan yahay. qoomiyadda dadka iyo dhulka degtaa waxa weeyaan saami qiibsi wax la yiraahdo ama 4.5 waxyaalaha Soomaalida ku maamusho oo qabaliga ah baa jagooyinka lagu qiibsan jiray. madaxweynaha beesha ugu lafweyn baa qaadan jirtay. afayeenka baarlamaanka waxa weeyaan gobolka Daawa buu ahaan jiray. wixii kale ka soo hara Soomaalida kala qaadan jirtay. madaxweyne ku-xigeenka dhinaca iyo ciisaha kor city meelahaas loo diri jiray. marka hadda ayaamahan waxaanu arkaynaa maaragtay dhibaato culus in ummadan reer Daawa loo maleegayo oo maaragtay madaxweyne Mustafa Cagjar iskaga tumanayo oo qof jaac ka dhahayaan jirin oo maaragtay marba madaxdii ayagii bahdilayo halka u kala irsanayo. sidaad ogsoon tihiin shalata waxaa la soo dhisay dowladdii la soo dhisay beesha ama dadka dega Daawa waxay ku xisaabtamayeen afayeen baarlamaan. sidaa maqalnay afayeenka baarlamaanka oo dhan oo maartay Ethiopia dhan oo kiilaha dhan waxaa la yiri dumar ha loo dhiibo. markaasay taa dumarkii gobolka eeke laga soo doortay inta la dhaafiyay ba maartay dadyow kale afayeenkii afka loo geliyay oo farta laga saaray. qofkii meesha haystay oo afayeenka baarlamaanka ahaa ninka odayga la oran jiray Mallown waxa weeyaan wasiir buu doorbiday. wasiirka ganacsiga farta laga saaray. marka arintaas nooma cuntanto. arintaas maartay dhibaato badan keeni doonto weeye. madaxweyne Mustafa uu og yahay gobolka Daawa maartay inuu markas dagaal iyo dhibaato ummadooyinka kale oo la degnaan ugu sameeyaan kursigan ama afayeenka baarlamaanka oo waxay noo aheeday wadada kaliya noo furan oo dawladdu kula xariirno dawladda kilka shanaad wadada kaliya aan kula xariirno ahaan jiray tiin hadda waa naga wareejiyay. berrito gobolkaas haday wax ku dhacaan madaxweyne Mustafa adaa qaadi doonta mas'uuliyadeedii. aniga haddaanu nahay waxgaradka gobolka waartay Daawa runtii waa ka soo horjeednaa. madaxweyne Mustafa madaxdii ayagii abuse ku haya wuu liidaa wuu bahdilaa runtii. odayaashii dhaqanka ahaa oo maartay mooyaale iyo nawaaxigan joogana kalama tashanayo markuu dawladda dhisayo. 3 qof oo mid maal qabeen yahay oo cali dheer la yiraahdo iyo mid kale oo wiil u dhalay oo maartay kunaaye la yiraahdo barasa mooyalka ah iyo nin gobolkaaba shuqul ku lahayn oo shaale la yiraahdo ayaa noo jaangooyo waxyaalahan siin lahaa. runtii arintaas ashtakaanu ka nahay gobolka Daawa wax garadkiisa daanu nahay arintaa waa ka gelgelinaynaa. afayeenkii Mallow ahaa oo meesha laga qaadana runtii asaga naftirkiisii nin maartay shaqadiis gabay way nin fashilmay buu ahaa. waxa weeyaan qofka waxa weeyaan inuu wax hore la soo dhaafay wax cashar ka qaato oo maartay casharkii hore oo maartay akhristaaf wanaagsaneed. afayeenkii asaga ka horeeyay see loo galay afayeennimadii marka lagu buuqay oo laga qaaday wasiir baa laga dhigay wasiirka macdanta iyo maartay tamarta la yiri. dhowr bilood markuu hayna daaqada maartay waa laga qaaday. Mallow adigna kitaabkaas ku qoran Mustafa Cagjar hadda wasiirnimaad ka qaadatay beeshaadaad khiyaantay oo ummadii reer Daawaad khiyaantay. wasiir Mallow hadda tahay maanta wasiirka ganacsiga lagu yiri ummadii oo dhan baad khiyaantay naftaadaad khiyaantay. laakiin reer Daawa wax garadkeeda haddaanu nahay arintan kama harayno. har iyo habeen kama harayno mana ka harsanayno. hadday qoondada dumar noqotay anaga dumar baa noo joogo hudad baa laga soo doortaa oo meelo kale laga soo doortaa. ma garad gabadhaas ahayd xaqna way u lahayd inay afayeen baarlamaan noqoto. maxaa u diidayo haddayba beeshu leedahay afayeen
ummadda dadka ugu badan Mustafa Cagjar family iyo dadku ka dhashay way madaxweynuhu qaatay qowmiyadda labaad waxa weeyaan dhinaciyo madaxweyne ku xigeenka maartay dhinaciyo maartay city waa la geeyay tan afayeenka baarlamaan maxaa gorgortan geliya way Mustafa Cagjarow waa la soo fadhiyaa ku hoggaansan mayno haddaanu nahay reer daawa shacabkeegii waa diiday dawladda soo dhistay waa diinay habeen baan diidanahay maalin baan diidanahay noocaada waxa u qiibisana noocan ka qaadanayna ma aha haddaad xoog nagu maqooninaysan gobolka iska keen baan ku leenahay haddaanu nahay wax garadka waan istaagaynaa waa dhiidhiyeynaa waa diidaynaa arrin aan maartay qaadan karna ma aha odayaasha saddexda qof oo maartay meelaha aad ku haysatana waxba ku anfaci maayaan shacabkii reer daawa way hadleen way diideen saawla soco dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal miyaydan wax isqabto isqiimeeya baa lahay miyaydan wax isqabto isqiimeeya baa lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa qaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiibaa la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiibaa la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago soomaali qalloocane ogow quwadii allo quruma rogtay baa jirte quruma rogtay baa jirte qisay reebtaa qisaba qubane wuu soo tixnaa taariikhduna way qortaa qaladku qulub buu dhalaa qulubku qarax buu dhalaa dalkiisiiyo qariban fanaan wax ka qaban karayn dadkiisina u qabiil u qaybsamay baan ahoo qalbigu way oloolayaan